kulankeena maanta shirka jaraa'id aan ku cadaynay wuxuu ku saabsanaa maadaama aan nahay xildhibaanada kolleegadiisa ah oo la xijinayo guddoomiyaha deegaan doorashada markii laga hadlayo iyo magaca hadda waxaa baarlamaankan lagu soo xulay qaab qabiil waa ogtahay reer ahaan markii laga hadlayo dadkii la xijinayay ayaan nahay waxaan leenahay taladiisa iyo muxuu ahaa toosintiisa ayaan muxuu ahaa leenahay marka waxaan caddaynaynay meesha ay naga joogto iyo aqlabiyaddeena sida ay qabto badankeena sida ay qabaan guddoomiye waa la hadalnay cabashooyinka xildhibaanada ay ka keeneen waan la talinay waxaan isku daynay inaan la shaqayno ma aha yacni hadda keliya baarlamaanka sagaalaad baan ku wada jirnay saanu guddoomiye noogu ahaa maalintaasna saan unbay u taagnay marka mar walba annaga ayaa ahayn dadka u dhaxeeya oo muxuu ah dhahaya muxuu ah balaalo bal wixii lagaa sheeganaya xalli guddoomiyaha dee waa dhegaysan waayey dad kalea malaha ku muxuu ahaa yaa oo aan rabin in soomaaliya ay degto ayaa faraha kula jira ayuu u dhowaaday marka warkeena ma dhegaysanayo taa waa mid oo inaan caddayno inaan beri ka nahay inaan caddayno inaan muxuu ahaa mooshinkii sharciga ahaa ee laga keenay aan taageerayno inaan caddayno oo muxuu ahaa haddii ay noqoto in cod lagu kala baxo inaan ka codaynayno guddoomiyaha ee aanan u codaynaynin isaga ayaan u caddaynaynay waxaa kaloo dheeraada inaan weli aanan ka quusinin oo aan leenahay annagaa dad ku xigna adduunyo dhammaadkeed ma aha nin waayela tahay da'dii ritayrka waa gaartay hadda haddii marba cabasho lagaa keenay oo intaasoo xildhibaanadii aad guddoomin lahayd ay kaaga cabanayaan ay ku leeyihiin walaalow nama hoggaamin kartid waxaan leenahay isqabqabsi ma fiicna sharafna kuma aha iskaga fadhiiso oo u fududay taasna weli waa leenahay waa kula talinaynaa intaas baan ku caddaynaynay shirka jaraa'id waxyaabaha guddoomiyahu qoonsaday waliba hal iyo labo mooshinka way sababeen waad noo sheegi kartaa lagu qoonsaday waxyaabaa lagu qoonsaday miya waxyaabaa lagu qoonsaday mooshinka faahfaahintiisa ku qoran yihiin waa aqrin kartiin waxyaabo badanoo aan la soo qorin oo anagana naloo keenayna waa jiraan laakiin markii lasoo koobo waxaa ugu horreeya qaabkii guddiyada baarlamaanka loo dhisay dadku waxbay qiibsadaan 5 meelood baa wax loo qiibsadaa dhismihii guddiyada baarlamaanka waa lagu eedeeyey guddoomiyaha aad iyo aad xildhibaanada mooshinka bilaabay kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka tobnaad markuu xirmayba wuu socday mooshinka oo xildhibaanadii qaabka guddiyada loo dhisay qoonsaday baa keenay oo isaga uu qancin waayey way wadeen waxaa kaloo ku jirta miisaaniyadda baarlamaanka maaliyad buu leeyahay miisaaniyad oo qaranka ansixiyey oo dowladda u qoondaysay buu leeyahay mushaaraadka baarlamaanka mushaaraadka shaqaalaha muxuu ahaa lacag kale oo xafiiska guddoonka baarlamaanka ku qoran iyo muxuu ahaa lacagaha safarada iyo waxyaabaha la midka ah qaaraan baa jira oo xildhibaanada ay iska jaraan bil walba xildhibaan kasta gunadiisa waxaa laga jaraa qaaraan joogto ah dad dhintay lacalla hadday dhintaan baa loo jaraa dad xanuunsan lacalla hadday xanuunsadaan baa loo jaraa dad baa halkii baa loo soo waxaasoo dhan miisaaniyaddaas baarlamaanka uu leeyahay in badan waad maqashay baarlamaankii sagaalaadna muxuu ah recordingka waad heli kartaa xildhibaanadu saanay uga hadlaayeen guddoomiyaha runtii arrintaasi transparent ama muwaafi kama noqonin oo eedaasi baarlamaanka marna waa lasoo hordhigi waayo waa la keeni waayo isaga iyo muxuu ahaa qof shaqaalaha baarlamaanka uu samaystay oo xildhibaanada runtii kulligood baarlamaanka hortiis baa looga hadlay haddaa xasuusantahay haddii kale xaal mastuur baa mar walba waxaan leenahay bal intaas layskuma qabsan karee inaan guri iyo wax la cuno laysku haystaana loo malaynayaye hala samaa sidaas baa lagu waday arrinta miisaaniyaddana qaabka loo maamulay hadday hufnaani dhammaato oo muxuu ahaa aysan jirin muxuu ahay shafaafiyad aysan jirin meesha waxaa waaye dadku ma qanci karaan xagga shaqaalaynta
shaqada baarlamaanka dadka ka shaqeeya aad iyo aad ba runtii annaga waxay noogu noqotay arrin aan la qaadi karin jaa-ifay noogu noqotay waxaana la leeyahay baarlamaanka shaqaalihiisa hal meel wey dad aan shaqaynin oo degmooyinka iyo muxuu ahaa ilaa sacuudi arabiya iska jiraa ku qoran alaashaan waa dad oo muxuu ahaa anagana ku riixayo wixiina anaga wax shuqula kuma lihin shacabka soomaaliyeed oo dhan shaqaalaynta iyo baarlamaankooda iyo wax walba xaq bay u leeyihiin inay wax ku yeeshaan tii bay ku saabsan tahay at least inay hufinaato shaqaalaha si transparency loo qaato hab nidaamka shaqo qorista dowladda ay maraan ayaa muxuu ahaa ayaa muhiim ah marka labadii baarlamaanba in muxuu ahaa dadkii soomaaliyeed oo kale ay dareemaan inay ka wada qabtan yihiin oo aan cadaalad ahayn baa jirtay taas waxay ku saabsan tahay maamulka baarlamaanka iyo maaliyaddiisay ku saabsan tahay qodobka labaad mid waa guddiyada midna waa maaliyadda waa fahamtay soo maha qodobka saddexaad waxaa waaye oo waxyaaba ugu waaweyn oo la taabanaya ah ajandaha baarlamaanka la horkeeno waa arrinta ugu culus weeye oo dadka dhan taabanayso ajende kasta oo baarlamaanka la keeno waxaad aragtaa wuxuu noqdaa mid indhaha caalamka iyo indhaha shacabka soomaaliyeed dal iyo dibadba ku soo jeesta ayuu noqonaya maxaa keenaya waxaa keenaya ajenda haddii qolo mucaarada amase muxaafada ay keento ajendaha waxbaa haah lagu leeyahay ama waxbaa maya lagu leeyahay cod baa la rabaa baarlamaanka in la horgeeyo cadaalad loogu qaado guddoonka waxaa laga rabaa inuu u dhexeeyo dhexdhexaad uu noqdo si xaaladda ay u degto qoladii laga codbadiyana ay u dareento in xuquuqdii dadka laga badan yahay ay leeyihiin qoladii codbadisana ay u aragto in muxuu ah majoritida inta badan ay wax hogaaminayso xaqooda ay helayaan markaas dadka o dhan waa kugu qancayaan guddoomiyii si aan ahayn buu samaynayaa qolo walba markay u timaado gooni uu la soo shiraya wuxuu leeyahay ajendahaas anigu haleey marka dadkii waxaad arkaysaa kulli ballan loo qaaday marka waa la isdilaa baarlamaanka way isku dilayaan qolo walba waxay leedahay guddoonkaa nala jiro qolada kale waxay leedahay guddoonkaa nala jiro arrintaasna waxay keentay conflictigii awalba muxuu ahaa celcelis u baahanaa soomaalida xaaladdeeda aad bay meel u joogtaa dad muxuu ahaa mararka qaarkood waxaad u mulaysaa in habaarna soo gaaray ilaahay hana xalliyo dhibaato khilaaf iyo macno aan lahayn oo sidiisa aan u abuurnayn baa na haysta oo aan asaas lahayn yani laakiin dadka qalbigooda dareemay waa kala shakiyeen tii marka haddii loo kala sheekeeyo oo la yidhaahdo waa idinla jiraa wada qoladaana la yidhahdo ii keena mooshinka mar gacantayda soo geliya qoladaana hadday keenaan anaa dhulka ku dhufanaya shibka dhaha yani waa isdilayaan dadka ma isfahmi karaan taa beddelkeeda waxaa la rabay oday waaye oo dadka u dhexeeya la iska soo doortay oo akhyaartii nugtahay baarlamaanku wuxuu ka dhigan yahay akhyaarta oo muxuu ahaa shacabka soomaaliyeed ay iska soo dhex xuleen oo yidhahdeen umuuraheena tawaliya bal wixii khayr ah noogu shaqeeya ninka guddoominaya waxaa laga rabaa marka mas-uuliyaddaas inuu dareemo culeyskaas inuu qaado oo dadka markaa kula fadhiya keliya aadan arkin oo shacabka soomaaliyeed oo dhegaystayaashaada ah oo ku daawanaya aad fiiriso oo ajandihiisi cadaalada loo maamulo oo runtana laga sheego qofkii xoogoo aad u aragtid wixiis inaysan soconaynin aad dhahdo ani waa idinkula talinaa sidaas laakiin haddaad jeceshihiin waa idin geynaa dhexdhexaadnimo inaa muujisa laakiin aadan dhihin waa kula jiraa oo kan kalena aadan dhihin waa kula jiraa taana dhibaato badan bay keentay baarlamaanka sagaalaad baa la isku dilay intaas oo mooshin baa la keenay guddoomiye wuxuu ahaa xilka keliya aan mooshin laga keenin intaas waxaa lagu mashquulsanaa ummadihii kale in 100 mooshin laga qoro madaxweynaha intaas goor baa la eedeynaya ii keenu leeyahay haddana waa kala diray buu leeyahay baalki yani waxaas waa la dhibsaday xildhibaanadii iyaga ahaa oo baarlamaanka sagaalaad ku jiray badankood waxay ku jiraan baarlamaankan dad cusubna way yimaadeen weli tiiba socota way garanayaan marka wixii la soo maray dadku way arkayaan way u jeedaan hadda laftigeedana waa loo jeedaa waxyaabaha socdo la isku qabsanayo oo dhan guddoomiyaha raad buu ku leeyahay xiriir buu la leeyahay kooxaha kala gedisan siyaasadda soomaaliya ka hadlaya ama danaynayo oo dhan ballanqaad buu la leeyahay marka qolo walba hal shay haddii loo wada ballanqaado ma wada heli karaan aakhirka waxay noqonaysaa inay isdilaan asagana xagga ka fadhiisto oo wuxuu yidhahdaa leser baan ku dilaya leser yacni dagaal qabow aan la arkaynin tii bay horta dadka ka cawdeen oo ajendayaasha baarlamaanka waxay ka dhigtay mid kulul
oo muxuu ahaay dadkana soomaaliyeedna culeys badan u keena oo culeys dhaqaale culeys muxuu xaggii amnigoon laga shaqayn karin iyo jidadkii oo xiran siyaasadda keliya oo loo soo wada jeesto in laga shaqeeyo ay noqoto ayay kaliftay meeshanna waxaa loo baahan yahay in adeegii bulshada laga shaqeeyo waxaa loo baahan yahay in horumar la gaaro dalkeena lacag hataa male waa ujeedin dowladda yani mooshinkan wuxuu soo bilowday labadii kalfadhi oo hore kalfadhigii saddexaad baa hadda furmay qof walba cid walba waa ogeyd kalfadhigii saddexaad hadduu furmo in mooshinka guddoomiyaha miiska la soo saarayo diyaar buu ahaa xildhibaanadii guddiyada iyo maaliyadda iyo waxaan ka cawday baa keenay cid kaleoo ku jirtay ma laha markii guddoomiyaha mooshinkiisa la dhiibay habeenkii oo guddoomiye ku-xigeenka koowaad loo geeyey uu ogaaday subaxii in lagu dhawaaqi rabo uu ogaaday habeenkii intii xildhibaanaha oo asaga salaan ugu tagtay iyo intuu asaga xiriirka la lahaa baa muxuu ahaa gurigiisa hooygiisa ku kulantay muxuu ahaa gurigiisa lagu bilaabay inuu muxuu asaga yidhaahdo mooshinha lasoo qoro kale kayga lagu burinayo mooshinkan been waxa la dhaho saana la yeelo yani markaasaa isaga xukuumad eedeyn iyo muxuu ahaa inuu meel kale u boodo bilaabay laakiin cid kale oo mooshinka gadaal ka taagan ama hajinabay ha noqoto ama ha noqdaan muxuu ahaa xukuumad ha noqoto ama institutionada dowladda qeybaheeda kale ha noqdaan ma jirto ama hay-ad ajnabiya cid wado mooshinkaas oon xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ah oo rabaan guddoonkooda inay iska bedelaan oo guddoon kale iska dhex doortaan taasoo ah mid ay xaq u leeyihiin aan loo diidi karin laguna faragelin karin waxaan ahayn ma jiraan inay weli ma aqbalin laba goor buu hadlay inta mooshinka laga keenay haddaa xasuusatid anigu waa fiirsanay waa daawanayay videoga waraysigiisa mar wuxuu hadlay markii mooshinka la keenay subxii oo guddigii joogtada ahay buu raadiyey guddoomiye muudey buu u yimaaday isagoo wato waraaqo uu leeyahay xildhibaanada mooshinka iga keenay la sheegaayo qaar ka mid ah waa ka laabteen mooshinka markii la keeno kadib la ogaado cidda keentay baa muxuu ah hadday ka laabanayaan baarlamaanka la keeno la akriyo baa haddii qof ka laabanaya iyo qofka kale iyo qofka ku jira la ogaan karaa guddoomiye sida isaga uu ka mid yahay dadka mooshinka soo diyaariyey markii mooshinka la keenayo waraaqo watay uu leeyahay 16 qof anay ii keeneen waa ka laabanay leeyihiin meesha guddiga joogtada isugu yeeray ku shiraayeen buu hadlay wuxuu yidhi mooshinkii la iga keenay waa jabay yani taas arrin saxa ma aha mooshin haddii laga keenay guddoomiyaha procedureka waa very clear dadkana waa fahmay aad buu cad yahay waxaa waaye kow mooshin haddii laga keeno guddoomiyihii shirka guddoominayay laga keeno waxaa qasab cidda isaga ku xigta ayaa loo dhiibaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad buu baarlamaanka leeyahay yani jararkiyadu waa isku xigtaa haddii guddoomiyihii la eedeynayo ku-xigeenkiisaa loo dhiibaa isaga banaanku fadhiisanaa koowaad ku-xigeenka koowaad markuu qabto ajandaha isagaa kusoo daraya hadduu qabto oo sharci u fahmo oo rasiift uu ku qoro waa qabtay uu ku qoro wuxuu galay procedure baarlamaanka keliya looga hadli karaa in guddiga joogtada loo yeelo oo guddoomiyaha guddi joogto waxa la yidhahdo afkiisuu kusoo celceliyey waa arrin khalada oo dadka lagu marin habaabinayo guddiga joogtada baarlamaanka waxay ajandaha baarlamaanka diyaariyaan 2 bilood ee baarlamaanka uu fasaxa ku jiro si haddii fasax markuu ka soo laabto kalfadhiga markuu furmo ajanda diyaara loogu geeyo markaas oo xukuumadda iyo guddiga joogtada la rabo inay ka wada shaqeeyaan ajandaha la rabo 4 bilood soo socota baarlamaanka inay qaranka u meel marayaan si loogu shaqeeyo tiiba muxuu ahaa si khalad u isticmaalaya baarlamaanka hadduu furmo guddiga joogtada xildhibaanadooda ay ka mid yihiin ajandihii la keeno toos ba baarlamaanka aadaya mooshin hadduu yahay mooshin guddi looma geeyo guddoonka guddoomiyaha baarlamaanka ciddii ay khusaysaa loo keena haddii guddoomiyaha uu guddoominaya asaa loo keenaa baarlamaanku keenaya mooshinkaasaa yaalo waan qabtay waa laydin qeybiyey intaasoo maalmood aan ka hadalno guddoomiye ku-xigeenka markii loo keeno oo guddoomiyaha mooshinka uu ka dhan yahay guddoomiyihii meel buu fadhiisanayaa garsugu waaye wuxuu ka garsugayaa baarlamaanka go-aanku gaaro ayuu sugayaa baarlamaanka go-aanku gaarayana waxaa maamulaya guddoonka asaga ka soo haray guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenkiisa koowaad baa hagaya waxay ahayd ku-xigeenka koowaad inuu nala hadlo u yidhaahdo mooshin baan qabtay waa jabay ama uu yidhaahdo mooshin baan qabtay wuu jiraa
laakiin guddoomiye jawaari wax ugama banaana waa nin la eedeeyey meel buu fadhinaya taas waa mid horta taas khalad bay ku ahayd midda labaadoo khaladka ah waxa waaye shalay waa hadlay wuxuu yihi waayahay mooshinkii laiga keenay ogolaana jiritaankiis bal inaa ogolaaday ka soo qaada khilaafkii waa dhamaaday buu yihi maya shuruudu xiray weli ma ogola wuxuu yihi guddiga joogtada deg deg ha fariistaan muxuu ahay in la shiraayo in kale ha go-aamiyaan meesha lagu shiraayo xarunta ka hadlaan saan ha yeelan yani wuxuu dhiibayay dictation buu yeerinayay oo ugu talagalay baarlamaanka inay og yihiin uu og yahay laakiin wuxuu ugu talagalay inuu dadka uu u tusaaleeyo inuu asaga diyaar yahay oo laga diidan yahay wuxuu aaminsan yahay shacabka soomaaliyeed inaysan akrinaynin xeer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka inaysan akrinaynin buu u qabaa haddaysan akrinaynin dadka qaarkiis wakiilay leeyihiin xildhibaanada waaye ayaga akrinaya waxa waaye guddoomiyaha mooshin markii laga keenay waxaa hadli kara oo saan hala yeela dhihi kara waa guddoomiye ku-xigeenka guddoomiyaha hal shay baa u furan inuu ogolaaday caddaynaysa mooshinka laga keenay waa ogolahay mudane guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo ah kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka inta aniga arrinteeda ka kala baxayso cadaalad baan rabaa diyaar baan ahay ogow markii shir a qabanaysid isoo wargeli inuu yidhaahdo ama warqad ha u soo qoro ama ha u tago labadaasaa u bannaan laakiin inuu shir jaraad intuu qabto isagoo caraysan muxuu ahaa dadka oo dhan markii mooshin laga keeno isaga uu maamuli jiray isaga ma caraysnaan jirin markii lagaa keena adigana waa lagu soo doortay waa inaad dul qaadataa oo isdejisaa oo muxuu nidaamkan u hoggaansataa runtii saasaan leenahay guddoomiyuhu ma ogolaanin weli ma ogolaanin ma ogolaanin in muxuu mooshinkiisa laga shaqeeyo ma ogolaanin in cod dimuqraadiya lagu dhameeyo ma ogolaanin inuu u hoggaansamo xeer hoosaadka iyo dastuurka inuu u hoggaansamo ma uusan ogolaanin ma uusan ictiraafin guddoomiye ku-xigeenka koowaad waajibaadkiisa markii guddoomiyaha mooshin laga keenay sida uu yahay waxaa lagaa rabaa inaa ictiraaftid sidii markii adig ajenda aad maamulaysid la keeno dadka ajendahaas uu quseeya ay u dhaqmi lahaayeen waa inaa u dhaqantaa ajenda adiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad maamulaayo oo adig kaa dhana ayaa yaalo haddaad xilka jeceshahay rabtid inaad weligaa sii joogtid iska joog laakiin nidaam ku soo raadi ogolow tanaasulaadka guddoomiyaha lama imaanin mooshinka ma ogolaanin weli taas anaa ku caddaynaya dadka qaarkood ee Soomaaliyeed taa dhibaato ma leh doorashada waa aqlabiyadda guddoomiyaha haddii la doortay rabitaankeena marka hore siduu ahaa waxba qiimaa kuma fadhido waxaan u hoggaanay waxaa qiimo leh laakiin inaan ogolaanay oon la shaqaynayn waxaa qiimo leh inaan muxuu ahaa baarlamaankii sagaalaad annaga oon ka tashanin oo beeshii dhan ay isku dhinac tahay uu keligiis dhinac aaday markii la doortay waa la shaqaynay baarlamaankii tobnaad sidoo kale sidiibuu noo galay raalli kama ahayn haddana markii la doortay waa la shaqaynay haddana waa ogolaanay waa annagii hadda kule waan la joogno walaaloosan ka da xilka keliya inuu qofka la weynaado ma fiicna ani haddii hadda intaasoo xildhibaan ay dhihi lahaayeen muxuu ahaa xildhibaannimada xataa walaaloo ka tag de intaas wixii irsaaq iyo muxuu ahaay sharaf iyo karaamo aad heli lahayd ilaahay baad ka helaysaa ya inaad muxuu ahaa dadka aad qiimaysid qiimaad ku helaysaa taas khiyaarkiisa ay ahayd laakiin anaga waan la shaqaynay waa ogolaanay wax raada kuma laha laakiin qaabka maamulka uu noqday iyo qaatiga ummadda ay ka taagan yihiin anagayna nala xijinayo waxaan ku qasbannahay inaan cadaalad noqono oo qaranka u helino dowladnimada inay shaqayso u helino oo muxuu ahaa codkeena si xalaal ah oo wadaninimo ah soomaalinimo ah aan u dhiibino ee qabyaalad aysanna qaadin walaalkeena aan difaacayna aanan dhihin taas ayaa muxuu ahaa yaa la arka la rabaa in la fiiriyo cadaaladda lagu fiiriyo hadda maxaad filaysaan maxaa darasaysaa kolleyba baarlamaanka aqlabiyaddiisa meel bay martay baarlamaanka aqlabiyaddiisa meelay martay guddoomiyaha inuu guddoomiyo ma ogolaanayaan ilan dadkan akhyaartii dadkas ka soo xuleen waaye intay fadhiyaan waxaa la rabaa ajendaha markay ka hadlayaan qof shir ku guddoomiye oo ay raalli ka yihiin salaada ilaahay subxaana wa tacaala
imaam aan raalli laga ahayn dadka kama bixin karo ya imaamka waa in raalli laga yahay salaadda markuu dadka ka bixinayo haddii qof ka mid a imaamnimadaada u dhibsanayo xataa inaa imaam noqotid xaaraan waay shareecada islaamka ma banaana haddii lagu diidaayo in imaam aad noqotid marka ma suurtogeli karto baarlamaan 200 ku dhow oo ku diidan in muxuu ahaay aad guddoomiye u noqoto shir guddoomiso wax suurtogala maaha ma dhici karto marka waxaa muuqda guddoomiyaha in si sharaf leh uu ku baxo ayaa aniga jeclaan lahaa ayaan kula talinaynaa haddii kalena xildhibaanada ayaa saaraya waa baxaya hadda ugu dambeyn haddii guddoomiyaha inta cod la qaado sidaa dhacdo aqlabiyada marka lagu soo noqdo waa nidaam wey waa u hogaansamaynaa nidaam way u hogaansamaynaa laakiin waxaan ku sheegayaa arrinta waa caddahay isma saarna xildhibaanadu way is wada raaceen habeenkii iyo maalintii baan iska warhaynaa xildhibaanadu way is wada raaceen qof walba kuleylka waa taabtay dhibku waa gaaray khilaaf waa laga daalay muxuu ahaa in dadka loo kala wax sheego way ka daaleen muxuu ahaa haddii maanta qof aad sirto beri qof kale aad sirto saadima qof kale aad sirto banaankay soo baxaysaa maogtahay oo lagu dadka dhan dad la wada siray bay noqonayaan marka dulqaadka waa dhammaaday waxaan filayaa walaalkeen in isagana nin waayeli waaye uu doorto xasiloonida dalka iyo muxuu ahaa sumcaddiisa wax u fiiriyo oo iska tago xildhibaanada waxaa ka go-an inay iska saaraan saasaan ku xaqiijinaya waa mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullah